Saxaraha Thar waxa uu ku yaalaa qaybo ka mid ah Hindiya ee Bakistaan, waxaana isku dayaynaa in aan wax badan ka ogaanno waxyaabaha cajaa'ibka ee u gooniga ah deegaankan. Saxaraha Thar, oo sidoo kale loo yaqaan Saxaraha Weyn ee Hindiya, waa gobol weyn oo oomana oo ku yaala waqooyi galbeed ee qaarad-hoosaadka Hindiya, kaas oo daboolaya dhul badkiisu dhan yahay 200 oo kiiloomitir oo laba jibaaran. Wuxuu sameeyaa xuduud dabiici ah oo u dhaxaysa Hindiya iyo Bakistaan. Saxaraha Thar waa saxaraha koowaad ee ugu dadka badan, saxaraha 20aad ee ugu weyn, iyo saxaraha 9aad ee ugu kulul adduunka. qiyaastii 85% lama-degaanka Thar waxa ay ku yaalaan Hindiya, halka qiyaastii 15% ay ku yaalaan Bakistaan. Saxaraha Thar waa qiyaastii 4.6 wadarta guud ee aagga juqraafi ee Hindiya. In ka badan 60% Saxaraha Thar waxa ay ku yaalaan gobolka Rajasthaan ee Hindiya. Qaybta Hindiya sidoo kale waxa ay ku fidsan tahay gobollada Gujarat, Punjab iyo Haryana. Qaybta Bakistaan waxa ay ku fidsan tahay gobollada Sindh iyo Punjab. qaybta waqooyi bari ee lama-degaanka Thar waxa ay u dhaxaysaa buuraha silsiladaha ee Aravalli iyo xuduudaha galbeed ee Bakistaan. Inta badan dhulka saxaraha waxaa ku daboolan ciid aad u badan oo wareegaysa. Ciidda ayaa ah mid u guurguuraysa, taas oo ay ugu wacan tahay dabeelaha xoogga badan ee yimaada sanad kasta ka hor inta aan roobku bilaaban. Webiga Luni waxa uu ka mid yahay webiyada mara saxaraha. Saxaraha Thar cimiladu waa oomane iyo kuleel. Heerkulkiisu celcelis ahaan waa uu kala duwan yahay marka loo fiiriyo xilliyada. Bilaha xagaaga waxa uu gaaraa in ka badan 50 digrii sentigrade. Celceliska roobka uu helo sanadkii waa 100 ilaa 500 oo milimitir inta u dhaxaysa bilaha Juun iyo Sebteembar. ciidda lama-degaanka Thar ayaa ah mid engegan sanadka intiisa badan, sidaas darteed waxa uu u nugul yahay nabaad-guurka ciidda. Dabaylo xooli ku socda ayaa ciidda ka soo rogmada saxaraha, waxa ay ku fidaan qaybo ka mid ah dhulka barwaaqada ee deriska la ah. Si looga hortago dhibaatadan, waxa ay dawladdu dejisaa qorshayaal iyadoo dhireen lagu sameynayo qaybo ka mid ah deegaanada ku dhow aagga saxaraha. Kanaalka Indira Gandhi oo dhererkiisu dhan yahay 649 kiiloomitir wuxuu keenaa biyo nadiif ah lama-degaanka Thar. Waxaa loo dhisay biyo-xireenno si loo joojiyo ku fiditaanka saxaraha meelaha barwaaqada ah. Qaar ka mid ah noocyada duurjoogta ee ka sii dabargo'aya qaybaha kale ee Hindiya ayaa laga helaa saxaraha. Waxaa ku nool nooc ka mid ah biciidka iyo noocyo ka mid ah dayrada. Duurjoogtan waxa ay si fiican ula qabsadeen deegaanka. Waxa ay badanaa yihiin kuwa habeenkii soo baxa maadaama maalintii cadceeddu ay aad u kulushahay. naasileeda kale ee ku nool saxaraha waxaa ka mid ah karakaal oo ah nooc ka mid ah bahda bisadaha, dawacada cas iyo tiro xamaarataha ayaa sidoo kale ku nool. gobolku waxa uu hooy u yahay
141 nooc oo shimbiro ah, kuwa guuray iyo kuwa deggan, oo ay ku jiraan Harriers, Falcons, Buzzards oo dhammaantood noocyo ka mida gorgorka. Daa'uuska Hindiya oo ah shimbirta qaranka Hindiya iyo shimbiraha kale ee gobolka Punjab ayaa sidoo kale laga helaa saxaraha. Saxaraha Thar waxa ay ka kooban tahay geedo yaryar sida Balantias oo sidoo kale loo yaqaano timirta saxaraha, Cisphus, geedka boocbooca iyo noocyo fara badan oo ubax ah. Xeryaha duurjoogta ee saxaraha waxaa ka mid ah Nara Desert, waxa ay ku fadhidaa bad dhan 6300 oo kiiloomitir oo laba jibaaran. Waxay ku taalaa degmada Mirfarkas. Waxa ay ka kooban tahay tirada ugu badan ee xaaska Mugar ee ka sii dabargo'aya deegaanka. Laal Suhana National Park oo loo aqoonsaday liiska dhaxalka adduunka ee UNESCO waxa uu ku fadhiyaa bad cabirkiisu dhan yahay 65791 hektar. Waxa uu ku yaalaa gobolka Joolistaan ee lamadegaanka Thar. Saxaraha Thar waa saxaraha ugu dadka badan adduunka. Dadka ku nool waxa ay gaarayaan ku dhowaad 16,600,000 oo qof. 83 qofba waxaa ku soo aadaysa 1 kiiloomitir oo laba jibaaran. Inta badan dadka ku nool dhulka saxaraha waxa ay ku dhaqmaan diinta Islaamka iyo Hinduismka. Bulshada ku nool saxaraha Thar qaar ka mida waxa ay quudiyaan jiirka, kaas oo ay ka aaminsan yihiin marka ay dhintaan kadib in ruuxdoodu ay noqonayso jiir. Waxa ay sidoo kale aaminsan yihiin in awoowayaashoodii dhintay ay hadda yihiin jiir ama dooli. Dadka ku nool saxaraha Thar shaqooyinka ugu waaweyn ay qabtaan waxaa ka mid ah dhaqashada xoolaha iyo tacabka beeraha. Saxaraha Thar waxa u badan dhaqamo midabo leh oo qani ku ah caadooyinka. Dadku waxa ay aad u jecel yihiin gabayada, heesaha iyo muusiga.